Asalaamu calaykum waraxmatullah. Barnaamijkan ayaan waxaan ku soo qaadanayaa macluumaad laga yaabo inaadan hore u maqal ee daawasho wacan. Cunidda cidiyaha. Mararka qaar, cunidda cidiyaha waa caado ka soo bilaabanta carruurnimada. Inta badan, dadku waxay adeegsadaan ilkahooda si ay iskaga gooyaan cidiyaha ku baxay. Balse haddii aan ku dhaho daawade, cunidda cidiyaha inay leeyihiin dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ka mid yihiin inaad jeermis ama bakteeriyaad ka qaaddo, kuwaas oo halis ku ah jirkaaga, kuguna kordhin kara infekshan. Sidoo kale, inaad cunto cidiyahaaga waxay kugu sababi karaan in cidiyahaaga ay ku dhacaan waxa loo yaqaan bronchia, kaas oo halis ku ah cidiyahaaga. Midda ugu daran ee laga dhaxlo cunidda cidiyaha ayaa ah inay kugu faafiyaan gooryaannada. Daawade, haddii aad tahay mid cuna cidiyaha, waxaan kugula talinayaa inaad iska joojiso ama iska dhaafto cunidda cidiyaha. Maxay xididadu u yihiin kuwo buluug ah? Haddii aad qof yar cad eegto gacantiisa, waxaad ku arkaysaa in xididadiisu ay yihiin kuwo buluug ah. Qaar ka mid ah dadka ayaa u arka inay yihiin kuwo cagaaran. Maxay tahay sababta keenta in dhiigga ku jira xididada ay yihiin kuwo casaan ah, halka xididadu ay yihiin kuwo buluug ama cagaar ah? Ugu horreyn, inta badan xididadu waa kuwo kalar la'aan ah, yacni ma lahan wax kalar ah. Xididadu waxa ay wadaan dhiiggii uu jirka soo isticmaalay oo oksijiin la'aan ah, halka ay halbowlayaashu sidaan dhiig leh oksijiin. Dhiigga oksijiin la'aanta ee ay sidaan xididadu ayaa ah kuwo ka yar madow dhiigga kale ee oksijiinka leh, waana sababta keenta inay xididadu kalarkoodu beddelmaan. Qurwaalaha ku nool adduunka oo dhan ayaa la sheegay in culeyskoodu la mid yahay culeyska bini'aadamka. Halkii qurwaale ayaa culeyskiisu u dhexeeya 1 ilaa 5 milligaraam. Haddii la isku soo dardaro dhammaan culeysyada qurwaalaha, ayaa la mid noqonaysa culeyska bini'aadamka. Halkii qof ayaa culeyskiisu u dhigmaa 1.4 milyan oo qurwaale ah celcelis ahaan. Sidaas waxaa BBC-da u sheegay Professorka Jaamacadda Sussex. Gobolka California waxaa ku taala goob aysan ka jirin wax cufis jiidad ah. Goobtan ayaa lagu magacaabaa The Mystery Spot, waana goob uu ku yaryahay cufis jiidadka. Shaygii la tuuro ayaa halkii laga rabay inuu hoos u soo dhaco ayaa beddelkeedu kor aadaya. Waxayna culimada sayniska ay ku sheegeen in cufis jiidadka ku jira goobtan uu dib ugu shaqeeyo. Sidoo kale, waxaa jira goobo aysan ka jirin wax cufis jiidad ah, sida goobta caanka ah ee Magnetic Hill. Dalka Mexico waxaa ka dhacday dhacdo cajiib ah oo ka yaabisay dadka intooda badan iyo culimada sayniska. Daawade, haddii aan ku dhaho dhacdadaas waxay ahayd kalluun ka soo daatay cirka oo u soo da'ay sida roobka oo kale. Arrintan ayaa ama kaak iyo fajac ku noqotay dadkii deganaa dalkan iyo guud ahaanba dunida. Waxayna dhacdadan dhacday sanadkii 2016. Kalluunka ayaa sida roobka ugu soo da'ay gudaha waddankan, iyagoo inta badan waddooyinka la qarsoomeen kalluunkan awgiis. Culimada sayniska ayaa waxay ku tilmaameen dhacdadan inay ka mid tahay dhacdooyinka dhif iyo naadirka ah, waxayna u sabeeyeen inay dhacdo markay dabeelaha duufaanka ah ay ka dhacaan gudaha badda. Dabeelaha ayaa awood u lahaanaya inay badda wax ku jira ay soo qaadaan, kadibna ay sida roobka camal u soo daadiyaan. Dhacdadan ayaa sidoo kale ka dhacda qaybo ka mid ah dalka Sri Lanka.
Coca-Cola waxay ka mid tahay shirkadaha soo saara cabitaanada aashitada leh, waana shirkad ka mid ah shirkadaha ugu caansan adduunka, waxaana iska leh dalka Mareykanka. Waxaana magaceeda la sheegaa inuu yahay midka ugu caansan kadib ereyga okay, yacni okay ayaa ah ereyga ugu caansan ee adduunka, halka Coca-Cola uu yahay ereyga labaad ee ugu caansan. Shirkaddan cabitaanadeeda ay caanka ku tahay ayaa waxaa jira 2 dal oo aan iibsan cabitaanadeeda, waxayna labadaas dal kala yihiin Kuuba iyo Kuuriyada Waqooyi. Labadan dal ayaa gabi ahaanba iska joojiyay inay iibsadaan cabitaanada Coca-Cola, maadaama uu Mareykanku cunaqabateyn xoogan saaray muddo aad u dheer. Sidaas awgeed ayay labadan dowladood iska joojiyeen inay iibsadaan cabitaanada Coca-Cola. Kalluun xidigeedka ama starfish ayaa ah kalluun ku noolaan kara biyaha cusbada leh oo kaliya, waxaana xayawaankan lagu tiriyaa inuu ka mid yahay xayawaanada ugu quruxda badan ee ku nool gunta hoose ee badda. Xayawaankan ayaa lahayn dhiig iyo maskax, taa beddelkeedu xayawaankan ayaa jirkiisa ku shaqeeya biyo. Marka uu xayawaankan u quuto ayaa biyaha ku dhex jira gudaha jirkiisa u shaqeynaya sida dhiigga oo kale, waxayna biyaha qaadaan nafaqooyinka iyagoo meel waliba jirka ka mid ah gaarsiinaya, midaas oo u ogolaanaysa in xayawaankan xubnihiisu ay si habboon u shaqeeyaan.